بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. runtii waxaan idinku yeedhay inaan ka hadlo hal qodob oo hadal dhawaan uu saxaafadda siiyey wasiirkii hore cadaaladda Xuseen Axmed Caydiid oo isku magacaaba ama sheegta afhayeenka tiimkii la baxay isbahaysiga marka oo ku saabsanaa madaxweynaha iyo muddo kordhin iyo hawlo fara badan. Marka ugu horeyn horta in badan buu maaragtay Xuseen Axmed Caydiid ka hadlay warbaahinta isagoo mar duraya xisbiga marna duraya xukuumadda. Imiga u dambeysay wuxuu yiri madaxweynihii aan waddanka u dhiibanay lama hayo. Xuseen waanigii hore u hadlay berigii hore isagoo la nagama saari karo xisbiga ayaa waxaan bar wax dadka u sheegtaa ilaa imiga su'aashaas kuma jawaabin. bal sharciga adigoo xisbi sheeganaya inaad kulmiye ka mid tahay oo dadka waxa ku qancinaya haddana hadalladaada mar walba iyo shirarkaaga jaaliyadda qabanayso kaga hadlaya inaad wada hadal la furatay xisbiga mucaaradka ee wadani bal qodobka ku fasaxay gareeqaan oo wad sheeganaysaa inaad xisbiga xukuumadda iyo kulmiye ka mid ah inaad xisbi mucaarada wada hadal la furan karto dadka u sheeg iyo maad been sheegaysa marka dadka kulmiye ka mid ah marka dadka lagama saari karo marka dadka wada hadal baan la furanay xisbiga wadani marka waxa weeyaan hadda tahay sidii dad reer Israa'iilkii taqra al-aaya wa tasal al-aaya ayada khusaysana indhaha iska qaban jiray tay doonayaan akhri jiray horta arrinka ina dadka ka qancisa wanaagsan isbahaysi baan ahay kulmiyaan ahay mucaarid baan haddana wada hadal la furtay meel ay dastuurka xisbiga iyo shuruucda kaga qoran tahay ma jiro lixdaas sano maamulka xukunka ku jiray ama wasiirka wuxuu aad u dhaliyi jiray kooxda maaragtay loo oran jiray iyaguna aan jirin qeyr sharciga ahayd loo oran jiray madasha maantana isagii waa madal aan sharci ahayn kula waa sharci marka ma garan karaba qofku waa inuu isagu ismiisaamo dib u fadhiisto wixii qaldan waxaan shalay taageerayay ee aan doonayay haddaan maantana isla markiiba waa arrin ceeb waa Xuseen ceeb ku ah marka Xuseen runtii qorshe weyn oo uu watay oo qorshaha uu meesha kaga orday ayaa u suuro geli waayay marka hadalkan iyo iska orahdan iyo waxaan Xuseen warbaan isu hayb malaha shalayna isbahaysiga iyo wuxuu dhaliinayay qolada la yiraahdo wada tashiga madasha oo la sharci ma waa runtii sharci ma isbahaysiguna waa sharci oo waanu jiraa isagu dib haysugu midda kale wasiir baa ahayd xukuumadda ka tirsan waxaana leedahay dalkii aynu madaxweyne aynu dooranay dalka kama taliyo su'aasha la weydiinay waxa weeye ka taliya hadda adigu in adiga iyo tiimka kula fikirka ahiba kuma talagelin habeen cid ka dambayso oo maaragtay xukuumadii ma jirto ujeedada ugu weyn ee lahaydna waxay ahayd inaad afgambi samaysaan ama xukuumadda jirta ay jilbaha u dhigtaan oo halka ay taagan tahay markaad adigu ka baxdo ay dhaafi weyn marka waxaan ku leeyahay waxaad la yaaban tahay systemkan ka dambeeyay ee shaqeeyay madaxweynuhu sidii yareeda fudeedu go'aanka u qaatay ee waadna ku yiri raad mahadsantahay iska soco booskaaga inuu soo buuxiyay marka xaaladaadu lama oran karo waa xaalad caadi waxaan ku sheegayaa marka Xuseen wasiir baad ahayd oo nidaamkaad ku jirta shalay mar haddaad xukuumaddii ay waxba ku noqon weyday markaad ka cararto lahad cirkaa soo dumayay systemkana system adag oo dhisan u yahay oo dimuqraadi ah oo madaxweynuhu booskaagii si fiican u buuxiyay inaad dib u fadhiisato xishootood iska aamustaabay inaad weliba aflagaada ku darto haddana iyadoo taasi dhacday runtii ma yahay waxaan kusoo gabagabeynayaa xisbiga kulmiye ee aad ka midka ahaan jirtay nidaamkiisa iyo shuruucdiisa iyo dastuurkiisu raacay tallaabo ku habboon xeerka aad jabisay iyo xisbiyada kale wada hadalka la furtay adigoo kulmiyana waa lagaa qaaday marka
haddaad xisbi kale ku beeraysood gelaysana hadda cidi kuguma haysato ninkii muxuu yidhi ka daydayo haddaan kuu fasaxay dibad wareegii horta fasax baad u tahay inaad xisbi iyo meeshaa doonto gasho laakiin dhaliisha xukuumadda iyo madaxweynaha aad ku sheegaysay aanu qabin oonu kaaga jawaabin waxaan ku leenahay waddanka madaxweynaha xukuma isagaa u taliya inuu doorashada waktigeeda ku qabtana madaxweynuhu diyaar u yahay waxaa looga fadhiyaa haddii doorashada baarlamaanku qabyo tahay cid baa xilkeeda leh doorashada madaxtooyadu xukuumad ahaan horena diyaar bay ahayd maantana waa diyaar xeerkeeduna waa diyaar adduunkeedina waa diyaar taladeedina waa diyaar xisbigii geli lahaa ee tartankiisii iyo muxuu ahaa kambaynkiisii iyo shacbiyadiisii iyo taageeradiisina waa diyaar qodobka qabyadii de waa sida waa kii baarlamaanka taa eedda cidda leh ha ka soo weecina c waa meeshaad socoteen waxaan leenahay xukuumaddu waa diyaar doorashadana diyaar bay u tahay horena diyaar bay ahayda duruuf uu keenay muxuu ahaa aan lo odhan karno waxa keenay xisbiga mucaaradka ee waddani hoggaankiisa oo isagu gacanta ku hayay hadday tahay sidii loo ansixinayay commissionka hadday tahay wixii loogu talagalay wax kastoo xukuumaddaa ku xidhan diyaar buu ahaa laakiin dhinaca xisbiga mucaaradka ee baarlamaanka xukuma ayay ka suuro geli weyey waxaan kusoo gabagabeynayaa eeddu meeshay qabanaysa silaayana nin kororsiimo iyo xeldheeraysi u socda maaha waa nin taariikh leh waa nin halgan dheer waddankan usoo galay hadduu kursi jacayl doonayo tartankaa banaan mar labaad buu tartami lahay uma socdo waxaan se kuu sheegayaa aflagaadada iyo ciddii aan waddanka u dooranay ma garanayno waxaa lagu moodayay nin ka weyn waxa baarlamaanadii hore iyo siyaasaddii horena soo maray tan kulmiyana waktigii ugu dheeraa wasiir ahaa marka haddii maalintaad joogtana waddanku wada malab noqdo iyo wada wanaag maalintaad ka maqan tahayna uu noqdo wax kale dadka caqligale markaa intaa way garanayaan waxaad shaqo ka dhigatana maaha booskaagiina waanu buuxin adigoo mahadsan gabadh baa horaan kuugu sheegay gabadh baa waxa weeyaan ninkeedii laga keri waayo tiri hallay furo warqadda hallaysiyo markaa aan reerkaaga haysid balaaya kuma haysee iska joog oo reerka u joog oo carruurta hayso may markii la siiyana waxay tiri maxaa laygu furay markaa xuseen arrinkaaga waa maxaa laygu furay horaan kuugu sheegnay qanac oo xisbigaad u socoto kusii soco qubir uu kuu furan yahay billahi tawfiiq